maamadu wax dambi ah leedahay malaha. Maamadu waxay u xirneed ninkii jirarka dhiman doono. Waxay u xirneed 1 week. 1 week asaga xabsi ugu jirtay. oo niman tiyaasheeda intuu ugu tageen ay dhaheen noo soo daa ka shucuur aniga ii xiranta wayna ii xirnaahay gurigaas nabad inaan ku joogaan rabaa gurigeyga nabad ugu joogo way ugu soo tuureysay ayadoon waxba soo tuureen habeen madow inta ciyaalka xaafadda soo tuureen gurigiis ayuu xaafadda kala baxay inta subaxdii askar la yimid ciidan laba cabdi bilan la yimid maamadii majahaabiyo saldhiga yaqshid geeyo xabsi dalab ninka saldhiga degmada yaqshid haysto taliyaha ciidamada ayuu lacag inta ku siiyo maamadii wuxuu yiri xabsiga igu hay iyana iga soo bixin waligeed niman qaraabadeeda hawreer qaraabadeeda inta tageena la soo damiino maaga kaasa ciidamadii waxay dhaheen annaka waa nolol dhiigsantaan jirarkiina noo dhiigtay axmed dawla aha asagaana u haynaa asagaana ka soo dacwooday ilaa haddana kama aysan garbixin marka waxaad yeelaysaan ordaha axmed dawla soo heshiiyay axmed dawla markii loo yimid aniga xiranta uu yiri aniga xiranta ma daynayo labada gabdhood wartan hadda aan uga darsanaa ka wadanaa uu yiri gabadhiina waa maqantaa markaas gabadhiina waa ka samarnaa markaas oo bilaaba naga haystaa aydan ninkiina ku mahadsaneyn oo xaraan lagu haysto ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu wuxuu qadaray in maalin xaafadii la isku dagaalo ninka oo gacantaani ku baxo oo dad anaka naga mid ninkii ay dilaan waa u qorneed way uu dhintay asagu maxaa dadka hadda xabsiga loogu cadaabaya maamadii isbuuc u xirneed qamiistii ilaa haddan waa qamiistii kala waay qamiisteedii hore la dilay dad kale u xiran 4 qof loo xiray maxaa dadka loo cadibaya oo xabsiga loogu haya dadkaas dambi ma aysan geysan ninkii dambiga geystay waa baxay waa carar maxaa dadka loo cadaabaya maamada xabsiga loogu haya gabadheedii lagu leeyahay arooskii qarniga loo dhigaya maxaa aroos qarni loo dhigay hooyadeeda ba xabsi ku jirto 2 weeks hadsan xabsi ku sii maraysay wadadku cadaalad xumaa oo waxaan la hadli lahaa ninkan la yiraahdo Cabdi Shira Jaama fucking stupid baata maxaa yeelay qaybta xumaanta ku fiirto siyaasadda kale arrintan siyaasadda kale ninka la yiraahdo Cabdi Shira Jaama siyaasad buu ku wataa waxan waa arrin siyaasadaysan ugu soo ruwa ku weynta arrintan Cabdi Shira Jaama soon adii gabadhii dhashay aan intuu imaan say wuxuu dhacay ninka dilkiisa maxaa lagu dilaa soon oo inta xaafadii yimid gabadhii watay wuxuu yiri arooskii qarniga oo dhigaya asaga iyo ninka leeyahay dalxa asagu jirar waabo ninkaas la dilay oo kana xayaabo dalxa asagu wuxuu baa taaba arrintan jireera la foogay jireera la dilay iyo ku xun yahay kaas ma haysto oo soo jaan soo ku hadlo helabo laakiin waxa la yaabana ninka Cabdi Shira Jaama la leeyahay arrin siyaasadeed ka wata dadkuna ma fahansan waxa kale oo meesha ku jirto idaacadan ama TV-gan la leeyahay dalsan ganacsiga ku watan ay kuna meesha ganacsiga ku watan ay gabadha inta soo wadaan iyo wiilkii isku keenaan ay yiraahdaan muuqaalkan hala daawado saan hala yeelo lacag baa ugu socota lacag bay ka helayaan aan bay ku noqonayaan TV-gooda baa lacag badan soo gelaysa dadku ma fahansano marka haddii ay daacad yihiin waxay sameyn lahaayeen inay inta baxaan gabadhii ciideed u tagaan dilkan maxaa kale gabadh hooyadeed aabaheed ayaa la dhihi lahaa haddii meesha samaan laga rabo laakiin samaan lagama rabo dad in la isku diro ganacsi iyo dana siyaasadeed ayaa loo sameeyay arrintan teeda kale ninkan TV-ga iskale dalsan TV oo lagu yaqaanaa meesha joogtaa la yaqaanaa meesha habeen iyo maalin joogtaa lagu yaqaanaa magaalada lagu joogo dadka aad saas u galayso maamada xabsiga ku jirto toddoba wiil dhashay xamarayna kula joogi karaa oo qayb kamid ah xamaray kula joogtaa qaarna dibadda joogaan South Africa Francisco Djibouti ay loogan yihiin xamar lagu imaanaya saaxib taas midan kaaga harayna ma oo kugu imaanayna meesha joogto xaafadada naqaana meesha ku shaqaysan naqaana dan kugu imaani weey meeshaas on kugu imaan weeyda meesha joogto marada aan ku jiro nimo ku jiro taas waa mid ka shaqayn doonto haddii aan hadda inta baxdo maamadii xabsi intuu u tagto aadan video ka soo duubay oo arrinta qaldan in loo fasirtay aadan keenin oo aadan ka talin khayrka aan ku sheegay oo hadan ku sheegan kugu celinaya inaad fuusto kor u fiirsaa balana taas balana inta kale gabadha aabaheed waa xanuunsan yahay gabadha aabaheeda baxshay aabaheeda saan aalay gabadha aabaheed waa xanuunsan yahay gabadha aabaheed waa maskaxda looga jiro oo aan caadi ahayn
adeeryaasheeda baxshad leeyahay adeerkeed ma uusan bixin asagoo inuu baxshad rabo oo ninka jirta la balansan yahay oo la yiri biri noo imaado ninka odayaashiina watee sidii Soomaali wax soo doona jirtay ma soo doon ay gabadhii la baxsan la carareen bilay la maqnaayeen waa laga aamusay oo ciidu kama wada bakicin ba ciidana ma raadin haddana guriga anagoo hooyada iyadoo gurigeed iska joogto oo reerkeeda dhaqanaysa ayaa inta ciidan loo leeyahay xoog loo sheegay xabsiga la geeyay ninka dhinaca geeyay ma soo bixi karto yiri haddana kuma naga xaniin badan yahay hooyaday oo 65 sano jirtay oo reerka hooyo iyo aabbo u ahayd dila kurooyin in xabsiga inta dalqa wasiiyo haddana ciidu ugu tegin oo markii loo yimaado ninkii Iiraani iyo xirantahay ninku ma naga xaniin badan yahay horta Allah naxariisto dilkiisu qalad buu nagu ahaa anagu inaan dilnimo doonin laakiin gacanteena uu sababsaday Ilaahu naxariisto laakiin Soomaalida waxaan sheegaynaa anagu inuusan naga xaniin badan mid kale arrintan leeyahay mursadaasan hay abgaalasan hay fag abgaal mursada maxaa kaga jiro maamada laba wiigi xabs ku jirta cid intuu tagtay mursada ama ka socota ama abgaal ka socotay cid intuu u tagtay say wax ka yihiin tirin ma jirtay mid kale maamada kaligeed ma shariifo kiirta kaligeed ma xirna walaasheeda xiran asal kiirta xiran shariifo kiirta gabar dhasho caashi iido liiraa xiran waxa xiran gabar Mustaax Ibrahim liiraa oo aniga la dhalatay maxaa arrinta looga dhigayaa arrinta abgaal iyo mursada oo abgaal iyo mursado loogu majaxaabinayo waliba mursado loogu sii fogeynayo taas waa mid dawladdu u taalo dawladdu haddii ay dad sharciga keenayso oo dad inay ninkii cadaalad u raadisa ay rabto ninkii 3 nin oo dishay inta raadsatay maamada xabsiga ku jirta iyo dumarka kale oo xabsiga ku jiro xabsiga laga soo daayay wax dambi ay leeyihiin ma asli kirta ayadoo dhuxusheeda iska gadanayso suuqa tawfiiq joogto ayaa inta loo yimid inta la majaxaabiya xabsi dalab waxa lagu xiriyaa qaraabatiin meesha dagaalka dhaca dadka joogay oo dadka dagaalka geystay ayaa qaraabatiin lagu xiray dadkan kale yeelkooda wixii lagu xiray maama Shariifane gurigeeda laga watay isbuuc dilka ka hor isbuuc ay xirneed 1 week ay xirneed markaas laga dab wareegaya la dhahay abtiyaasha dhahay aan ku damiinano abtigeeda u tagay Abuukar Cabdi Maxamuud u tagay oo Muumin Cabdi Maxamuud oo Shariifo kiirta dhashay la dhashay aan ku tagay wuxuu yiri ana ku damiinano ana gabadhii taana ka naxay ana ku damiinanayo ciidamadiina wuxuu yiri dhibaatadii soo gaari mayso ana damiintay ana dhalay ana cashanaay waxaan sameeyay hadaan waa inta wadan tawfiiq wadan guriga geeynayo taas markay dhacay Shariif wuxuu tii aniga lagama yaabo xabsiga inaan ka baxo maxaa yeelay gabadhii aan 9 bilood caloosha ku soo siday oo aan soo naasmiyay oo hooyo iyo aabba anu waanu ahay maadaama aabeedu xanuunsan yahay ayaa xoog laga haystaa xoog baa lagu qaatay xoog baa lagu haystaa meher la'aan lagu haystaa waa xaram baa la dhabjinayaa right now hadda gabadhaas hadii uu ku soo baxo xalaal ma maxaa yeelay ku meersan ninkaas cid mehersan ma jirto علاش بيه ولا تجونا خلاص ولا ما علاش بيها قبر عباد حمر جو كحرنتا ورد ما سال لو شيء dadkan Soomaaliyeed dulma saan loo sheegay waxaan jeclaan lahaa arintan dawladdu inay ka hadasho oo waliba madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka hadlaan waxaan istignimada xildhibaanadan cadaqaatayaasha siyaasadda ka wata ay ku hadlayaan ay sameynayaan qaladkaas la joojiyo aroos qarniga loo dhigaa lagu leeyahay qol waxa la dejiyo $150 habeenkii lagu seexanayo hooyadeedna xabsiga ku jirta wiilkana aabihiisa dhintay oo adeerkiisa dhintay maxay ka macnaha taas cid dalkii gabar iyo wiil dadkooda istagaaleen oo familkooda istagaaleen arooska qarniga loo dhigaa lagu leeyahay ma anta waalidkii loo taga la soo heshiisiyo arrinta xal laga raadsho hadii aan xmaan ka wadinina baash